بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ما وعد سبحانه وتعالى. إلهي ما كريم معنا. إلهي نبدي نسيه. إلهي ذلك عنت نوسع إليه يا محمد. إلهي وحكم عليه. إلهي فوق تكتك نسيه الرحمن. إلهي وحكم عليه. إلهي حضر كان أفضل إنك نبدي كريم كبرين. وعليال وعلينا إدتك كسر غيب قري حفلة يدقي سوق بقابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركوه رئيسة جمع فرن بام ذكر أقبل لي وشرحات السعادة شعما أدان خصبك الدارية الدريال كنا وعقلاني إنا نشرحنا وعقلاني ولا ريال وحوي سعادة وحي كم من نقطي دتكي مقالة سعي الله ينتعها reer saaxil aan ka soo sharaxnay deegaanka iyo baarlamaankaba waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in labadii hablood ee ucid inantii xalayta xaliimo iyo saadala halkan laga caddeeyey inay ahaayeen hablo ku firfircoon samafalka iyo adeega bulshada iyagoo markaa xitaa aan ahayn xubno baarlamaan ku jiriya deegaanka waa dadkan u baahannahay inay dalka hoggaanka u qabtaan oo ay go'aamada siyaasadda ka qayb galaan walaalayaal waxa weeye annagu waxaanu ka shaqaynay haddaan rees nahay u cid markaanu ogaanay dhibaatada dalkeena ay noqotay aqoon darro iyo hoggaan xumo qayb kasta taagan waxaan xoogga saarnay inaanu marka u horeyna aanu dalka ka dhigno dal la wada leeyahay oo aanu siino jaanis ay isku sharaxaan bulshada reer Somaliland annagoon u eegin reer badan iyo reer yar baanu eegine qof kastaba siino ilaa laasqore ilaa loo yacdo dadka reer Somaliland waxaanu ka dhignay dal la wada leeyahay oo baarlamaanka soo baxaya iyo deegaanku aanu reerna qadin reer kastaba la siiyey jaaniskiisii baan ku siinay taas waxay noo suurto gelisay inaanu dhalinyartana aanu xoogga saarno oo maanta dhalinyarta aanu sharaxnay waxa weeye amba waa 40 iyo dheeraad marka 40kii gelaya amba waxa weeye 30ka aakhirkiis bay taagan yihiin waa dhalinyartii waxaanu ka qayb gelinay saas kale haweenkii waxaanu ka qayb gelinay dadkii la haybsooci jiray ee gabooyaha ayaanu iyagana gobol kastaba ka sharaxnay inay ka qayb galaan deegaanka iyo xisbiga baarlamaanka waxaanu hadda ku tala jirnaa walaalayaal inaanu wasiirada mustaqbalka aanu haddaanu cidnay soo baxnayo aanu doonay inay dalka hogaamayaan inay dhalinyaro technocrata oo ahayn niman qabiil ka wakiilahe dad ka wakiila ummadda oo ummadda wax shaqada loogu dhiibay garanaya inaanu magacaawno waxa ka kooban arkaysaan inantaanu ka dhignay arrimaha dibadda hibaad oo imka Soomaali si fiican u baratay waxa weeye dad caynkaasa ayaanu u dhiibinay oo aqoon ku dooranay reer hebel sidii tabeelaha ka muuqda reer hebel ee midaan waxba garanay xafiis u dhiib oo saarada u dhiib waa iska yooro taa waa joojinaa insha Allah ta'ala dad aqoon leh oo xilkas leh oo qabiil ka soconay qaranka u adeega ayaanu keenaynaa aqoonta meesha wasaaraddu garan ee loo magacaabay aqoonteedii leh imaga waxaad arkaysaa wasaaradii dawladdii siiraayo wasiirka ugu wasaarad fiiraa wuxuu noqday wasiirkii macdanta Xuseen Gurey uu noqday imaka wasaaradda haddaad tagtid macdanta biyaha dhalinyaro wada joogyojiya oo wax soo barta wada mastera ayaa ka shaqaynaya laana wuxuu ahaa isaga joolaji ahaa wasaaradii baa loo dhiibay oo garay cilmigeedii laakiin marka mid ka soo qabatay reer keenay oo sayal maxaad calanaysaa wasiir baa siiyay ee wasiirka reer lama siin ummadda la siiyay wasiir ummadda u qaban karaya oo caaqil ahayn wayna keento uqaashi waa tan loo joogtay wasiirka ma caaqil war ka dhigna walaalayaal wasiirku waa wasiir qaran waa aqoon yeesha
وإنه policy سمين كرا وإنه استراتيجي سمين كرا وإنه دتك هاجي كرا وإنه قبيل كم حر نقلاله ويقف أقوام كيراوي وعن سمين دون الدولة أقوام كل سنة وزير أقوام قرني ينسمين دون الله oo dadka aan qabiilku xeenay siifiisa ku kala dooranaya ama walaalaha ama qofka aqoontiisa ku qoranayo maanta dadka inay aqoonta lahaa dhalinyarada inay dibadda ka soo baratay gid xamar bay tageen hay'adaha xamarba u shaqeeyaan xalanay wada joogaan waa dadka u baahannahay laakiin Soomaaliland hadda uma waxay u egtay inaan cilmi u baahneen inay u baahan tahay reerama meel la gaarsiinaya reer iyo qadaa'il la isku lisaa waxaa dumisay Yemen waddanka Yemen la yidhaahaa waa waddankii carabta ugu daada weynaa wey maanta maxaa dumiyey waxaa dumiyey siyaasadda maanta aan ku soconno ee kolba reerna soo dhawayso reerna fogee ku shaqaysa taasaa dumisay waa baabiina qabiilka insha allahu tacaala waxaa halka inoo dhigay waa gudi reere gudi qabiil gudi reere taas waa weyn isku shalaas kareenna qabiilkii baynu isduusha ka dhigna najlis insha allahu tacaala dalkan qaran baan ka samaynaynaa insha allahu tacaala ku socda cadaaladda iyo shariicada ilaahay kitaabka ilaahay allahu akbar kaasaan ku shaqayna insha allahu tacaala kaasaan ku shaqayna waa ka baxayna qabyaalada waa ka baxayna qabyaaladan gudaheena weliba oo keliya een is-ixtiraameen een shaqo ku kala soconayn oo isku dulqaadaneen waa baabiinna insha allahu tacaala waa baabiinna waxaan ka shaqaynaynaa inaan biya dawladda la wareegto wakaalada biyaha la wareegto caafimaadka la wareegto laydka la wareegto waxbarashada intaba dawladda ku soo celiya gacanteeda insha allahu tacaala gacanteeda ku soo celiya afsal dalbaynu dhisinaa ku socda aqoon sharci ku socdaan sameynaa insha allahu tacaala taasay noo balana haddeen u nahay soo saara baarlamaankani waa baarlamaanka dhidibada u taagaya dawlad cusub oo model state insha allahu tacaala kaasaan ka shaqeynaa walaahay kaasaan ka shaqeynaa taasay noo balana ogaasha waa mahadsantiin